وهرين قدام يقصدوا مجال تجار أنا تدرين كسمالة بالدرين كأجنا حل ده ما دام كمان نقصنا تدرين كان وهرين هذا وعاك بلابي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. runtii waa markii iigu horeysay magaaladan jigjiga imaado aad iyo aad baan ugu faraxsanahay shacbiga Soomaalidu siday noogu soo dhaweeyeen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay si aad iyo aad u diiran baan naloo soo dhaweeyay shacbi iyo xukuumad iyo dadweyneba si fiican baan naloo soo dhaweeyay aad iyo aad raalli waan uga nahay wayna ku mahadsan yihiin shacbiga aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay بالكورن أدميرال تدويل سنة كدب نظام كي إثيوبيا بدلي لكن دستور كي أتفقتين هل كي سيبيا هل كان متدير بسوء سعودي تضوي لباتن كاسنا كلية تما هنا كهر بو سعودي هل كانكو wuxuuna ahaa sidii aan hadda ka hor baanu marar badan sheegnay halgan qori sudiib uu ahaa oo qolo kale ay ku wareejinayso ujeedaduna isku mid bay ahayd oo hal barnaamij baa lagu wada socday barnaamijkaasna waxay ahayd ummadda Soomaalida ogaadeen inay xornimadooda ay hesho hase yeeshee ilaa hadda waxaad moodaa ama maamulkan hadda cusub dalka Itoobiya hogaaminaya wuxuu muujiyay runtii astaamo fara badan oo wanaagsan oo yididiiro badan muujinaya markii ugu horeysay wuxuu sii daayay wixii maxaabiista hada dalku xidhnayd ka bacdina wuxuu ku baaqay ururadii gobonnimo doonka ahaa inaynan ahayn ururo argagixisa ay yihiin ururo gobonnimo doon oo xaqooda u dirirahaya xaqna ay u leeyihiin inay dalkooda soo galaan meeshii rabaan ay si nabadgelyo ay dalkooda uga mari karahayaan runtii waxa ku garab taagan madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar laga yaabaa dawladdan inaad la wadaagtaan doorashada dambe ma laga yaabaa inaad u soo istaagtaan wixii xuquuqda ah dadkan uu leeyahay si fiican baan ula wadaagi doonaa waxaanu doonaynaa ummadayadu inay hesho wixii xuquuqda ahaa ay lahaayeen inay hesho wixii aanu u baahanahay ma waxaanu raadinaynaa si nabadgelyo inaanu ku raadino ka waran ma laga yaabaa inaad wax ka bedeshaan ama fikirkiina ama mowqifkiina ama xataa astaamihiina ururka maadaama dawladdeegaanka Soomaalida oo dadka degan ay collection yihiin atimaadeen ururka iyagu astaamihiisa iyo ujeedadiisu waxa weeye horumarinta iyo midaynta iyo wadajirka ummadda marka midnimada iyo wadajirka iyo horumarinta ummaddaanu ku shaqaynaynaa deegaanka maamulka deegaankana waxaan filahayaa inaanu aragtida ka midaysanahay dawladda guud ee Itoobiya waxaan filahayaa inaynan arrinta ka hor iman kareynin in aan xornimadayada iyo midnimadayada iyo wadajirkayaga inaanu ka shaqeynayo horumarkayaga inaanu ka shaqeyna idina inayna ka hor imanayn waxaan jeclahay inaan kula wadaago magaca ururkiina qaar kamid ah shacabka yar liisan marka wax isbedel ma ku sameey doonteen haddii ururkayagu go'aankiisu waa go'aan dadweyne waa go'aan midaysan wixii la bedelay wixii lagu kordhinayo wixii waa wax go'aan midaysan oo jabhadeed buu noqon doonaa haddii alla yiraahdo maxay noqon doontaa hadda talaabada xigta ee wada doontaan horumarinta iyo midaynta iyo wadajirka iyo isku duubnida dadka inaanu arrinta ku hawlgalay noqonaysaa su-aasha ugu dambaysan ku weydiinaya magacayga Cabdimalik Sheekh Muuse Aldoon ayaa la yiraahdaa warbaahinta jiritaan ayaan ka socdaa su'aal baan doonaya ku weydiiyo waxa weeye halgan baad ku jirteen xuquuq baad u dagaalamayseen iyo muxuu ahaa aayad u dagaalamayseen dadweyne badan oo Soomaaliyeed qaar baa waxay qabaan jabhadii onlef way ka tanaasushay wixii ay u dagaalamaysay maxaa dadka aad oran lahayd waxaan leeyahay waxaanu ka tanaasulay ma leh xuquuqdayadii sideedii baan u raadinaynaa nabadgelyo aanu ku raadinaynaa iyadaasaanu ku shaqaynaynaa insha Allah iyadaasaanu guushiyo waxaanu rabnaa aanu ku gaadhaynaa midnimada iyo wadajirka iyo xornimadaba taas aanu ku gaadhaynaa waad mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin